Kabixitaanka ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan ayaa bilowday horaantii May, wixii intaasi ka dambeeyayna ururka Taliban ayaa isku sii ballaarinaya dalkaasi. Sida laga soo xigtay wargeyska Longowo, in ka badan 195 ka mid ah degmooyinka dalkaasi ee 407 ah ayaa waxaa gacanta ku dhigay Taliban toddobaadkii ugu horeeyay ee bishii la soo dhaafay ee July, halka ka hor May uu ururka gacanta ku hayay kaliya 73 degmo. Gacan ku haynta dawladda ee gobolada qaar ayaa sidoo kale khatar ku jirta, iyadoo ay jirto cabsi ah in Taliban ay military ahaan awoodda la wareegi doonto. Inkastoo ciidamada ammaanka ee dawladda ay dib u qabsadeen degmooyinka qaar ayna saameyntooda ku sii kordhaysa deegaanada qaar, haddana uma dhiganto guulaha ay gaareen Taliban. Kabixitaanka ciidamada shisheeye ee uu Mareykanku horkacaya ayaa loo aaneyn karaa sababta ugu weyn ee ka dambeysay guulaha Taliban, balse waxaa jira sababo kale. Muddo bilooyin ah indhayaasha ayaa ka digayay in dagaalku uu sii xoogaysan doono haddii xogaga shisheeye ay ka baxaan dalkaasi ka hor inta aysan heshiis kala saxiixan dowladda Afghanistan iyo Taliban. oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa bishii Abriil yiri, waxaan haatan cadeynayaa in haddii ay Ameerikaanku sidan uga baxaan Afghanistan, in dagaal aad khatar u ah una weyn uu ka dhex bilaaban doono Taliban iyo xogaga dowladda ee Afghanistan. La taliyaha ammaanka ee dowladda Afghanistan Hamdullah Mohib ayaa isagana guulaha Taliban u sababeeyay xogaga Afghanistan oo aan haysan taageero dhanka cirka ah.